السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena diiradda STN oo toddobaadkan idinkaga imaanaya deegaanka Dadaab barnaamijka diiradda STN oo ku soo qaadano arrimaha bulshada waxyaabaha taagan iyo guud ahaan arrimaha ku salaysan dhaqanka siyaasadda waxbarashada caafimaadka horumarka isdhexgalka guurka iyo arrimo badan oo lamid ah ayaa waxaan toddobaadkan ku eegaynaa caleemasaar ama caanashub qof soo yaqaano mid ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee deegaanka Dadaab ay ku caanashubteen beeshiisa haddaba sidee ayuu caanashubku ama caleemasaarku u dhacaa yaasi ka soo qayb gala maxay tahay sababta dadka loo caleemasaaro maxaa lagula dardaarmaa hogaamiyaasha dhaqanka loo igmada ee duubka loo saaro in ay bulshada ama beelaha ay ka soo jeedaan ay hogaamiyaan guud ahaan arrimahaas oo dhan barnaamijka ayaad uga bogan doontaan waxaan idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Baaruud Xuseen waa mar kale iyo barnaamijka diiradda STN xafladan oo lagu caleemasaarayay mid ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee deegaanka Dadaab oo beeshiisu boqortay ayaa waxa ka soo qayb galay cuqaal waxgarad siyaasiyiin dumar dhalinyaro iyo bulshada qaybaheeda kala duwan wuxuuna ka dhacay tuulada Madaxgiisi oo ka tirsan deegaanka Dadaab ismaamulka Garissa waxayna ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay iyadoona sida dhaqanka Soomaaliyeed uu yahay qofka la boqorayo ama la caleema saarayo caana geel lagu shubo isla markaana dhar quruxsan loo soo xiro kadibna ciyaar dhaqameed lagu kor qabto laguna dabaaldegayo waana tan mid ka mid ah xafladaha noocaas ah oo ummadda Soomaaliyeedna dhaqan ahaan ay aad u tixgeliso nabadoonka dhamaantii salaamantii intaas kadib waxa farxad noo ah galabta oo ay bishu tahay 29 bishii 11aad 2017 inaan meeshan xafladan isku imaadno xafladan oo ah xaflad dhaqan oo soo jireenayd dhaxal ah qoyska reexaad Faarax Samatar ay leeyihiin oo duqoodi ku caanashubanayaan waxa sharaf noo ah inaad martiqaadka naga aqbashaan aad noo imaataan oon ku caanashubanayno nabadoon Siyaad Digaale ninkaas meeshaan ugu caanashubanayno reexaad ahaan dhulkan aan ku noolahay wuxuu joogaa 5 fac si taariikhna loo tanoo sheegay waxa ka geeriyooday oo uu shanhayay walaalkii Daahir Digaale waxa sharaf noo ah in haddana aan helno reerka ka dhaxelo nin noo qaadi karo ushi una qalma waa ninaan soo xullay waa ninaan u soo xullay inuu matali karo aan fici karo dhulkan aan ku noolahay Soomaalida degan oo dhan gaar ahaan beeshan aan ka dhalanay ee Reafgaab iyo Cawliyan sharaf bay noo tahay arrinta ayada Cawliyan Reafgaab Soomaali tolka halkan ka soo wada qayb galay waxaan inaga codsanaynaa waan soo qaadanay inaad nala qaadaan nugula caana shubtaan maadaama aad tihiin xubnahaanagi iyo lafahaanagi iyo dhiigaanagi oonan meel aan kala ahaan karin ninkan aan soo xulanay waan miisaanay
marka qoys kastaba nin baa la dhihi madax baa tahay haddee qoyska iyo wixii fikrad iyo wixii cawlyahan iyo Soomaali weyn aad ku kabi lahayd waxaas loo yeelay marka aad ayaan ugu riyaaqay waana soo dhaweeyay anoo maanta shir uga adag qabay Gaaris oo nimankii governor-ga uu soo doortay inaan ma aragtay imtixaan ka qaadan la rabay ma hadda saddexaad waa iskale tolkii imaaday ee intaan u yeernay noo soo ajiibay ee meesha iskugu imaaday ee ilaa Gaaris Libooya qaxootiyahan Bambasa ilaa qaxootiyahan 3-4 xira inta nooga kala imaatay ayadana ma hadda saddexaad iskale waxaan kaloo idin sheegi hadal wuu dhan yahay waxa la yiri hadal looma dhaho waxba dhan baa loo dhahaa ma ogi hadal badni hadal looma dhaho hadal waa la dhameeyay haba u badnaado xaaji jiribi abtayha u badnaado ilaahay ku hore xaaji Cabdiqaadir ha u badnaado hadal waa la dhameeyay waxaan ku hadlaynaa oo afka riixad ku hadlahay intan meesha isku imaatay riixad kelima ah duqon ninkan tolkood dhan buu duq u yahay madaxgiisa laga bilaabo ilaa meesha u dambayso wixii arrin oo ka jirto wax duqnimo looga baahan yahay meesha dhawaaqiisii laga gaaro ma artay socodkiisa uu ka gaaro ayuu duq u yahay waxaan u sheegayaa karaamadii mar haddii duq laga dhigo siyaad mar hadaa duq laga dhigo inta ku ayidoo dhan baad karaamadooda wataa hadaad habaarto ninkaad habaartana habaarkiisa waa helaya habaarkaada waa helaya ninkaad u ducaysana ducaysa waa helaya intaan wax la tari karno intaan garab taagnaan karno intuu boqor u ekaan karo intuba inaan insha Allah ka shaqeyno waxa weeyaan wuxuu rag u kaco rabbina aqbalo way rumaan bay Soomaaliya ku maamaaday waa wax fudud wixii naloo sheegay waa talo odayeed waa talo taariikheed insha Allah taariikhda gali doontaa odayga annagana insha Allah wuxuu noqon doonaa oday in badan sida loo sheegay Cabdiqaadir hadalku yiri waxba meel naga soo go'ay yiri waxa meesha ka soo go'ay oo kala adeer annaka naga soo go'ay doona insha Allah wanaag bayna ku dhamaan doontaa Ilaahay qofku mas'uuliyadda loo dhibay mas'uuliyad yar ma aha dad islaam riixad mas'uul ma aha wuxuu mas'uul yahay qaryada uu degan yahay inta ka baxsanba yuu mas'uul yahay waxaan u aqoonsanaynaa mas'uul inuu ummadda Soomaaliyeed u yahay mas'uul marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ku cabastiro hana ku garab galo inta kale waa nin yar adeer adoo yar baad nin weyn noqotay waxaan kugu dardaarmay kaliya hal qodob waxa lagu sheegay run qofka runta yaqaanana Ilaahay baa u heliya runtii laban laab cunugaagiyo waxaad macnaha cunuga kale Soomaaliyeed qof u dhaxeeyo noqo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waan kaaga baryaynaa inuu ku liibaano ku guuleeyo waana kugu caano shubaynaa waana ku ducaynaynaa Ilaahay idamka ku garab ku noqonayo bilaa tawfiiq ninka hadda la doortay Siyaad Digaale Cabdille la yiraahdo waan qaadnay haddii aan reer khayr warsamanahay raalli baan ka nahay alxamdulillah kii dadka wax u tara oo xil dhowro oo alxamdulillah asagana is ilaaliya Allah ka dhigo waxay doonayaan wanaagsan Ilaah u sameeyo innagana kulankan aan ka soo qayb galay kulan dambi dhaaf oo khayr Ilaah nooga dhigo tan naga baryeen annagana waan la qiimeynay anoo duqi cali haba jooga duqi kala joogan waxaan hawsha u qaaday aniga bilow siyaado deegaanka oo kulli wakiilka ayagoo dhan waan qaadnay duqeydi reer dalana mas'alo kullina mas'ala degmada dhanna mas'ala odayga degmadana waan raalli baan ka nahay Siyaad Digaale waan soo dhaweynay walaalkan garab taagannahay hoo iyo heel baan ku garab taagannahay hawsha maanta waa hawl weyn waan qiimeynaynaa waan ku soo dhawaanaysaan raalli baan ka nahay Gracias.
Mana